وكم tahay dadka ku daalay in ay internetka lacag sameeyaan haddaba garan waayay hab ay ugu sameeyaan internetka lacag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. magacaygu Cabdi Saciid ku soo dhawaada YouTube kanalka Cabdi Saciid Stifler. Muuqaalkan waxaan rabaa in aan idinku wadaago saddex ka mid ah website-yada ugu wanaagsan kuwaas oo aad awoodid in aad ku iibisid sawiradaada. Waxaan ku soo xulay saddexda application kuwaas oo aan ku ballan qaadi karo in aad awoodid inaad ka heli kartid lacag adigoo ku iibsanaya sawiradaada. Balse waxaa jira shuruudo horyaala in aad ka samaysid lacag website-yadan. website-ka koowaad waxaa loo yaqaanaa stock qaar badan oo idinkeeda ka mid ah waad garanaysaan oo website-ka lagu iibiyo sawirada stock footage-ka ah aad sida loo yaqaano. website-kan waxaa kale uu leeyahay qayb aad adigu ku soo bandhigi kartid kuwaas oo aad ku iibin kartid sawiradaada. sawirro aad soo qaaday maaha sawiradaada shakhsi ahaaneed ee waa sawirro nature-ka aad soo qaaday magaalada meelaha qurux badan xeebaha. sawiradaas iyo fiidiyo ayaad ku iibin kartaa website-kan loo yaqaano stock. haddaba waxaan eegaynaa habka uu shaqeeyo. website-ka koowaad waa stock. waxaa lagu iibiyay in ka badan 1.5 milyan oo customers kuwaas oo ku kala nool 20 ka mid ah wadamada adduunka. website-kan waxaad ugu iibin kartaa sawiradaada in aad adigu sawir aad leedahay sawirro aad soo qaatay aad gelisid. maxay tahay shuruudaha horyaala website-kan in aad ku iibisid sawiradaada? marka koowaad waxaad u baahan tahay in aad is-apply gareysid. waxaa ku horyaala saddexdan shuruudood. shuruudda koowaad waxay noqonaysaa in aad la soo degtid application-ka App Store ama Play Store. sidoo kale in aad soo gelisid 6 sawir 6 fiideo ama 6 sawir ugu yaraan 3 adigoo soo gelinaya YouTube-ka linkigoodana ku soo xidhiidhinaya. waa si aad haddii aad u baahan tahay in aad ka mid noqotid website-kan dadka wax ku iibsada. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in review lagu sameeyo waxyaabahaagii ka bacdi lagu aqbalo. marka lagu aqbalo website-kan waxaa ku xiran shuruud kale ah in aad ka yar tahay 18 in aadan ka yarayn. taas cid kasta way dhaafi kartaa waxayna ku xiran tahay Gmail-ka aad samaysanaysid ama marka ugu horeeya aad diiwaangelinaysid da'daaduna ayaad ka weynaysiinaysaa. waxaan u gudbinaa website-ka labaad kaas oo loo yaqaano alam uu ka duwan yahay application-kii hore ee loo yaqaanay ama website-ka hore ee loo yaqaanay stock. alam waxa uu leeyahay waxaad soo gelinaysaa sawiradaada sidoo kale waxaad ka helaysaa commission waxaa la yiraahdaa waxay ku xiran tahay sawiradaada waxaa lagu iibinayaa qiimo go'an. qiimahaas ayaa waxaad leedahay 50%. shuruudahaas ayaa ka mid ah shuruudaha website-ka loo yaqaano. habka lagu aqbalayo uu ka fudud yahay kii hore kaliya waxaa ku xiran tahay commission-ka iyo qaybtan box-kan ayaad isku diiwaangelinaysaa. intaas kaliya weeye iyo waxa aad qabatay shaqadaada photographer agency iyo student. waxyaabo badan ayaa website-kan ku jira ama lagu soo gudbin karaa. uu ka fursado badan yahay website-ka hore ee loo yaqaanay stock. website-ka saddexaad ee ugu dambeeya wuxuu noqonayaa Shutterstock wuxuu ka mid yahay website-da laga helo ama laga iibsado waxyaabaha loo yaqaano footage-ka kuwaas oo loo isticmaalo fiidiyoyada. waxaad aragtay muuqaallo badan oo ka mid ah kuwaas oo aad ka soo dejisan kartid stock sidoo kale wuxuu leeyahay qayb free ah oo aad kala soo degi kartid muuqaaladaada. haddaba wuxuu noqonayaa website-ka saddexaad kaas oo aad ku gadi kartid sawirro yaryar fiidiyo gaagaaban iyo sawirro iyo waxyaabo badan. fursado badan ayaa kan aad ugu gadi kartaa website-kan ugu saddexaad uguna dambeeya ee loo yaqaano Shutterstock. haddaba miyaad u baahan tahay kaamirooyin aad u tayo sareeyo sida DSLR-ka oo kale si aad uga mid noqotid dadkan wax ku soo gudbiya kana shaqeysta oo saddexdan website ee loo yaqaano Shutter, alam iyo stock? haddaba kaliya waxa muhiim ah aad xooga saaraysaa waa quality. in aad soo gudbisid wax quality leh adigoo ku duubaya mobilkaaga kaamiradaada iyo wax kasta kaliya mobilkaaga ayaa kaga filan kara. isticmaal application-ada aadka u muhiimka kuwaas oo sawiradaada ka dhigaya kuwa aad u qurux badan kuwaas oo loo yaqaano Snapseed ama Lightroom. kuwaas ayaad ku edit gareynaysaa sawiradaada haddii aadan awoodin in aad wax ku duubtid kaamiro. intaas ayaan jeclaaday in aan idinku soo gudbiyo muuqaalkii aan kaga hadlayay saddexda website ee ugu wanaagsan kuwaas oo awoodid in aad isku daydid in aad ka samayn kartid dhaqaale. ma jirto khiyaali weeye in aad iska heli kartid internetka lacag meel iska taala, balse haddii aad u dabagashid in aad ka raadisid shaqooyin iyo fursado badan waad awoodaa in aad ka heshid. haddii aad halkan nala soo gaadhay fadlan muuqaalka like gare, kanaalkana subscribe gare
si aan idigu soo gudbino xogo daaran oo kuwan oo kale ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.